ma tahay xirfadle xirfadiisa ku shaqeysta sida xisaabiye qof qoraaya ama turjumaan afafka kala duwana ama aqoon u leh suuqeynta iyo qaababka loo diyaariyo xayeysiisyada ama aqoon u leh xiriirada caalamiga sidaas si la mid ah haddii hay'adaha maxalliga shirkadaha ganacsiga dawladda iyo hay'adaha caalamiga aad u baahan tahay qof xirfadle oo shaqada aad u baahan tahay ku qabanaya barnaamijka maanta waxaan ku wadaagi doonaa xog ku saabsan madal isku xidhaysa xirfadlayaasha iyo dad iyaga u baahan in loo shaqeeyo inta aynaan taagelin qadar yar xayeysiisa kusoo dhaw barnaamijka connected case barnaamijka waxaan ku wadaagnaa arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan shaqooyinka saameynta leh iyo ganacsiyada Soomaalida ay istaahilaan in la baahiyo barnaamijka maanta waxa martiina ugu ah Maxamed Cali Jaamac Maxamed waa wiil dhalinyaro ah in ka badan 10 sano khibrad shaqo ayuu leeyahay waa asaasaha shirkadaha SSG iyo shirkadda World Logistics sanadkii hore dhammaadkiisa 2019 wuxuu iba furay hal abuur cusub oo ku cusubgeyga Soomaalida dhammaan iyo geeska Afrikaba madashaasi waa madal isku xidhaysa xirfadlayaasha iyo dad iyaga u baahan shaqada si qaab online ah arrimahaasi iyo arrimo kala badan baan ka horeysan doonaa Maxamed ku soo dhaw barnaamijka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka qayb ka tahay inaan kaaga mahad celinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka soo ajiibtay waxaan dhowr su'aalood ka weydiin doonaa Samwork xilliga la aasaasay fikradu xilliga idin ku dhalatay wixii fikradda keenay su'aasha koowaad ee barnaamijku ku bilaabay waxay tahay goorma fikraddaas idin ku dhalatay ugu horeyn bismillaah alxamdulillaah ala rasuulillaah sallam kays aad baad mahadsan tahay it's my great honor inaan maanta waqti isku helno adiga barnaamijkaaga iyo tiimkaaga madaalayaasha ay qiimaha badan leh walaal horta runtii waa su'aal aad u wanaagsan anagu maadaama aan SSG group markii hore ku jirnay technology sector-ka muddo badan ama waxa loo yaqaan corporate development-ka waa initiative kamid ah SSG on Samwork oo SSG waa group of companies marka maadaama technology sector-ka muddo badan aan ku jirno muddo badan aan ka shaqeynay waxa la yiraahdaa platforms-ka ama application development-ka ama apps-ka waxyaabo noocaas ah fikradu halkaas ay ka timid Samwork waxaan ugu dhaliyay runtii waa resource center waana hub isku xidha dadka employer-ka iyo dadka freelancer-ka dadka shaqada bixiya iyo dadka rabanay dadka shaqada bixiya iyo dadka doonaya inay shaqeystaan hubkani waa hub ay ku midoobeen dad kala duwan oo Soomaali oo dhan ah khaasatan u badan dad reer Soomaaliland iyo adduunyada kala dad ku nool oo platformku waa global platform weeyaan waa caalami waa madal caalami ah oo ay ku kulmaan dadka khibradda leh maxaan ku raahdaayeen xirfadlayaasha ee aadka u qaniga oo ah xagga waxbarashada ama aqoonta skilled kala dhaay ama erooyin gaar ah khabiir ku ah marka waxaan ugu keenaynaa maadaama anagu sector-kan aan consultants ku jirno mar walba waxaad u baahan tahay qof khabiir ah oo maad aragtay aqoon dheeraad ah macaamiishu waxyaabaha u baahan haday noqoto energy-ga haday noqoto infrastructure-ka haday noqoto policy development-ka haday noqoto maad aragtay waxa loo yaqaano apps-ka ama applications-ka haday noqoto waxa business development services-ka leeyahay dadka noocaas oo kale dadku waxay u baahan meel dadka noocaas in la kaydiyo oo dad kala duwan oo aqoon kala duwan leh ay si dib yar loo heli karo fikradda horta taas keentay وانا iska caadi qarniga 12aad lagu jiro ee adduunka fikradaha ma aragtay xagga technology-ga ama platforms-ka noocan adduunka oo dhan ay xawaar weyn ku socdaan way berigii hore waxa dhici jirtay ma aragtay platformada noocan ama innovationska ideas-ka cusub ee qarniyada u dambeeyay adduunku in mar walba sanadkii mar la soo saar jiray hadda research baan loodan akhriyay waxa jira Mareykanka oo kale dad aragtay garab gobol la yiraahdo California Silicon Valley waa gobolka hal abuurka adduunka waxa la gaaray 8 bilood bayn idea cusub la soo saaro inaguna fikrado cusub la soo saaro marka inaguna sayno adduunyada wala jaan qaadno waxaad ku qasbantahay hadda industry technology ku jirto mar walba waxaad ku qasbantahay inaad la socoto kacdoonka adduunyada ka socda xagga technology saasa marka horta markii horeysay Samwork oo markii uu horeysay
geeska Afrika arrintan laga sameeyo barnaamijka waxaa tiirarkiisa ugu waaweyn ka mid ah in markasta wax cusub ee kusoo biiray dalkeena aynu la wadaagno bulshada si ay uga faa'iidaystaan haddii ay tahay qof shaqaale ah haddii uu yahay qof shaqo bixiye ah iyo haddii ay bulshada qaybeeda kala duwan tahay maxamed sidee bay isugu xidhmayaan xirfadlayaasha aydan ku ururseen madasha Somewek iyo dadyoga raba in loo shaqeeyo walaal horta platformkani ama hubkani qaabka isugu xidhaya waxa weeye marka hore horta waxa jira platformku wuxuu u diyaarsan yahay in dadka xirfadda leh ama skilledkii ay iska diiwaangeliyaan shuruudo badan baa ku xidhan oo qofku iskama diiwaangelin karo imika waxa ku jira pipeline-ka more than 350 350 qof oo khabiira oo kala duwan baa ku jira oo wali processkii criteria aan kala xulista ku jirno waayo waxa loo baahan quality-ga in la ilaaliyo waan jeclaan lahaa waliba inaad mar intaad kamarada ku qabato si fiican loo arko iyo dadkii list ku jiro wali aanan aqbalin sababtuna waxa weeye in la hubiyo quality-googa background check-googa dadka CV-yadan iyo aqoontan ay sheeganayaan reality waxyaabo noocaas la hubiyo marka horta qof kasta oo waxaan leenahay board of directors oo hubiya arrimahaasi dadkan skilledka soo gelaya meesha quality-googa meetings haddii qofku Somaliland gudaheega jooga meetings baa loo sabqaraya Skype meeting video conference dadna waxa la interview lagu sameeyo waxyaabaha area example test year waxa lagu sameeyaa ma aragtay imtixaanada yar oo fudud baa loo dhiibaa oo lagu ogaanayo qofku khibradan uu sheeganayo inuu leeyahay marka horta dadku waxay isku diiwaangeliyaan ee isku helayaan in ma aragtay platformka iska diiwaangeliyaan oo la ogaado xogtoodii iyo areooyinka experience ku leeyihiin waana sectors kala duwan oo sector walba sectorka wuxuu ka shaqeyn karaa iska diiwaangeliyaan dadka marka la helo dadkii khibradii ee meesha iska diiwaangeliyaan dadkii u baahnaa qofba for example maanta adeegaysa waxaad u baahantay concept no degdeg ah waxay kugu qaadanaysaa inaad telefoon qof raadso ama hebel iyo concept note professional ay qori kala raadso laakiin maanta waxay matter inaad website ka gasho intaasoo qof expert ku jira qofka doonaysa aad hayr galisato waa free market one stop shop program marka aad ka hayr galiso qofka doonaysa qiimo kale qaar baa qiimahoodu dhexdhexaad yihiin qaar baa high price it depend adeeg ugu xiranta waa suuq xora marka qaabka laakiin adiguna waxaad u baahan tahay qofka marka employer-kiina inuu aqoon samaysto si uu ula macaamilo ama uu hayr galisto qofku doonayo marka qaab dadku saasay isku xidhmayaan waxay ka dhigan tahay aan ka dhex galay talaan qofku marka uu website-ka soo booqdo inuu xili karayaa xogtii qofka khibradiisii CV-giisii dhameystiran iyo tusaale ahaan intuu ku shaqeyn karaa saacad buu ku shaqeynayaa madhay buu ku shaqeynayaa xogtaas miyay ku jirtaa website ها walaal waxa ku dad kala duwan oo khibrado kala duwan leh waxa ku xirantahay qofka shaqada in loo qabto doonaya shaqadu doonayo sectors aad u far badan baa ku jira marka website-ka qofku kale wuxuu helayaa dad walba CV-giisa Axmed Kayse maanta haduu member ka yahay oo for example tahay business specialist wuxuu helayaa inta qof ee business development ka shaqeysa deedna qof walba waxa ku qoran per hour intuu ku shaqeeyo marka saacadii intuu ku shaqeeyo marka qofkay ku xiran tahay freelancer-ku wuxuu leeyahay charting system qofku la maxaan ku dhahday inuu sameeyo markay qofkii heshiiyaan qofkii ku qanca ama uu ku sameeyo criteria-diisu ee qofkii la heshiiyo shaqadii TR-kiisa uu soo publish kareeyay TR-ku marka waa laba nooc qofku inuu dadka qaar baa waxay ku adag tahay inay qortaan shuruudihii u dhaxayn lahaa loo shaqeeyaha iyo u shaqeeyaha marka inuu gudaha qof ka caawiyo oo dalbado iyo inuu isagu soo qorto qoraalku dibadna waxaan doonayaa ABCD qofku u sheego qiimeeyay ka heshiiyaan systemku wuxuu leeyahay qayb kale oo section kale oo payment terms payment-kii baa marka qofkii PayPal buu lacag ku deposit gareynaya ama sad services ma dahab whatever payment qofku marka haysto ku sameeynaa lacagta marka la deposit garay account bay ku dhacaysaa lacagta Somewek ba platform waa transparency-ga iyo accountability-ga ilaalinay qofkaas ilaa shaqada uu dhameeyo employer-kii freelancer-ka shaqada looma sii deynayo freelancer-ku sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay background check hadhow toole shaqada uu qabtay how level buu customer-ku u satisfaction ha xidigu siinay marka xidig stars buu qofku qaadanaya hadhow background-ka qofku inta project ku qortay waxay ku jiraan mashaashada waa system portal system noocaasa door intee leeg baad isleedahay oo ka qayb qaadanaysaa shaqo abuurka ma inay yarayso shaqo yarida dalka ka jirta wallahi horta
anagu waxaan isleenahay dadaalada qaranku ugu jiro sidii loo yareyn lahaa employment rate-ka aadka u sareeya ee caqabada qaranka ku ah waxaanu ka nahay qayb anagu waxaan isleenahay waxaanu nahay dadka kaliya 300 qof markii la shaqo abuur kara qaabkan ugu abuur karnaa waxa weeye platform-kayga dadkii oo dhanba ka diiwaan gashan dadkii waxay helayaan maanta waxa adag hadii qof la soo train garay xaguuda shaqo ka helaya 300 qof uu institution ka qaadi kara xagu jooga ta ugu muhiimsan waxa weeyaan intaas qof oo skill loo soo tababariyay oo la hubo aqoontooda in halka horta iska diiwaan gelin karaan waa laga yaabaa qaarkood in 100% bil walba laakiin waxaan guarantee gareyn karnaa wadi 6 months dadkaas in qof walba qof laba project qabta qof project qabta inay dadkaas shaqo wada heli karaan horta taas waa shaqo abuur weyn oo waxa weeyaan dadka experience-kooda bay taskareynayaan dadku waxa la ogaanaya dadkii khibrada ahaa dadka noocaas oo kale waxyaabo kala duwan ka shaqeynaya marka arintan waxaan isleenahay number 1 baan xagga shaqo abuurka qaranka iyo sida loo horumarinayo shaqo abuurka arrimo noocan oo kale ana waxaan u maleynayaa sektorada kale investment-ka badan la gelinayo waxa ka muhiimsan this kind of platforms oo markii dhalinyaro intaas oo shaqo ka heli karo oo shaqadii fududeynaya oo qofka shaqaalaha ee ka shaqeysanaya running-kus kuma socdo light kuma socdo umuraha noocaas oo dhan uu ka fiyow yahay sababtu waxa weeyaan inuu awoodi karayo inuu income saafiya oo helayso gurigiisa jooga sidee baa loo oran karayaa tusaalahaan dadyaga codsiga soo dhiibanaya dalka waxaad ogtahay waxyaabaha saameynta ku haya waxa ka mid ah in qof dhabarka la saaro oo qof aan imtixaan soo gelin in si fudud shaqadii sidee baa loo oran karaa waa loo aamin karayaa systemkeena in dadka jooga ay yihiin dad aqoontooda aad u sareyso lana hubiyay walaal horta arrimahaasi quality waa arrimo waaweyn sidaan hore ku sheegay imika dad baa list oo pipeline ku jiro doonaya in systemka iska register gareeyaan inta review baa ku socda dad badan baa ku soo codsanaya laakiin systemku wuxuu leeyahay user admin ilaa aanu aqbalno qofku isma diiwaan gelin karo sababtuna wax kale ma aha waa in quality-giisa hubino quality-ga walaal waxa lagu ogaan karaa qofka in pilot project u dirto shaqooyin u dirto tijaabisa aqoontiisu level-ka tahay waxa mid kale safe qofku wuxuu leeyahay waqti buu leeyahay hadii shaqo uu qabto oo shaqada la soo komad gareeyo draft tahay still waxaan haysanaa backup kale oo in qof kale shaqadii loo dhiibi karo winner-kii ku xigay waa sida procurement process-ka caadiga shirkad hadii imka procurement ku guuleysato oo shirkadii quality-gi loo doonayay marka horeba shirkadaha marka la xulayo top level iska soo qaata marka dadka freelancers-ka meesha ku jira waa top high level laakiin waa laga yaabaa marka qaar in quality-ga la doonayo mid garin waan laakiin xalku waxa weeye waxa jira alternative kale qof labaad oo winner ah oo ku xiga oo lagu bedeli karo marka qofkii employer-ka lacagtiisa inay safe baa taala koon bay ku taala time-ka uun baa caqabada marka time-ka waxaan leenahay project management specialist ku ah oo ilaaliya quality-ga time-ka iyo cost-ga arrimaha noocaas iyo scope-ka aad u ilaaliya way dadka madasha ku jira ma wada Soomaaliba masa waa la helayaa dadyo ajnabi ah oo tusaalahan in dadkeen ay wada noqdaan waxay chance siinaysaa mar walba in aynu shaqo abuurkiina ka qayb qaadano dalkeena waxa aad ugu soo badanay dadyoga ajnabika waana la doorbidaya runtii si aan u dhiirigelino dhalinyaradena intee baad oran kartaa way xaddi way ka yihiin dadyoga ajnabiga systemka walaal horta waa su'aal fiican aniga waxay la tahay horta systemku waa transparent qof walba oo arkay inta ku jirta figures-ka ku jira way muuqdaan boqolkiiba 99 dad ku jira oo dad Soomaaliland darisa oo dad Soomaaliya sababtuna wax kale ma aha anigu waxaan doonaynaa inaan dhiirigelino dadkeena wax bartay ee qarsoonay meelaha jooga habkana waxa kali u sahlaya wax weyn dadkii khabiirada ahaa ee dadka kale in la kala garto oo yaani dad lead mission ay waxaan ku raahday resource center-kana registered ka noqdaan dadka subscribe gareynaya inta badan waa dad aanu criteria ku soo xubno marka dadka ajaanibka mararka qaar laga maari maayo qof expertise oo specialist area inaanagu ay wadanku develop garoobaya dad baa jira adduunka horumarayo wadanada institutional development ama madaragtay xagga education system-koodu xoog u dhisan yahay waqti bay qaadanaysaa in la jaan qaadno laakiin meelaha qaar waa laga yaabaa dad expertise oo kala fooriyaan ku jiraan laakiin as much as we can we minimize we mitigate maxaan ku dhahday inaan arrimahaasi madaragtay xoog uga ilaalin dad badan oo noocaasi waxyaabaha fikradaha ugu waaweyn ee doonayaan waxa weeyaan dadka dibadaha laga keenay qarashka faraha badan la ku baxayo ee expertise-ka adduunka laga keenay waayo waxyaabaha dhaqaalaha wadanka burburinaya waxa kamid ah dadka dibadda laga keenay ee lacagtii $100,000 dibadaha ku soo expand gareynaya
waxa ka muhiimsan lacagtu inay dalka gasho oo ay platformka ka hayr gareystaan maadaama lacagtiina ay meel dhex taalo oo wax weeyaan wax resource oo ka qasaaray ma jiro marka anigu arrimahan dhiirigelina waa youthka localka dadka localka iyo dadka waddanka jooga inay qabtaan shaqooyinka foreign ku qabanayaan taasana oo muhiim ah hadii laga maarmi waayo markaas laga wada hadlayaa meen u baahan qof expertise oo aqoon laakiin qofkaasina muddo gaaban in aqoonti laga wareegayo qorshaha weeye waxay ka dhigantay ilaa inta aynu helayna dadkeena iyaga wax qabanaya inaynu dadkeena shaqaaleysino daawada waxay iga xasuusina haddaad barnaamijka ku cusub tahay oonad hore ugu xidhneen fadlan subscribe garee qambaleelkana taabo si aad mar walba u hesho muuqaalada aan soo gelino bartaan ku leenahay YouTube-ka maxamed gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay laba su'aalood baa inoo hadhay intaan su'aasha ugu dambaysa gelin muxuu yahay higsiga Samwalk walaal horta higsiga Samwalk horta higsigu vision waa wax fog oo waqti u baahan in fact laakiin anagu waxyaabahan doonanay higsigaygu iyo wax weyn horta in dad badan oo shaqo loo qabta la abuuro oo systemka laga dhex abuuro oo ay noqdaan meel ay ku xiran tahay dadka institutionska waaweyn hay'adaha businesska small businesska large businesska dawladda waxyaabaha noocaas resource center ay isticmaalaan horta inay noqoto number 1 number 2 dadka leadka ee Soomaalida wax bartay ee qaniga ah inaan ururino oo la helo qof walba ama haduu noqdo law specialist haduu noqdo maxaan ku technology sector-ka hadii noqoto pharmaceutical industry any sector dad badan oo waxa jira adduunyada jooga oo translations u baahan oo shuruuc u baahan in qof laga helo dadka khubarada ah ee loo baahan yahay quality-ga ay edebta leh ee leadership-kooguna wanaagsan in horta meesha laga helo iyo inaan marka kale horta Soomaali oo dhan aanu u shaqeyno kadibna geeska Afrika fog maadaama uu nahay geeska fikradii horeysan dad badan oo Afrika joogaan iminka ay try gareynayaan registry system ka noqdaan inaan geeska Afrika ku fidno oo aanu noqono Africa Global Village ka dhigno oo one stop shop program qof walo madal kublisa geeska Afrika dadka ku nool oo dhan ka shaqeystaan loo shaqeeyo iyo u shaqeeyo labaduba su'aasha ugu dambaysa maxay tahay fariinta aad rabto inaad daawadayaasha halkan u mariso oo ka kooban xirfadlihii rabay inuu shaqadiisa oo ku shaqeysto xirfadiisa iyo ganacsatadii ama hay'adihii maxalliga ah ama hay'adihii caalamiga ah ama dawladdii ay doonaysay inay helaan dadyow aqoon u leh shaqada ay rabaan cid u qabta inay raadinayaan waxaan runtii jecelahay chance-kan qaaliga inuu uga faa'iideysto horta platform-kani waa platform u horeeyay laga furo geeska Afrika horta mar number 1 Somaliland fan bay u tahay qof Somaliland diri arrinta noocaas capacity-ga noocaas leh resource-ka badan iyo dhaqaalaha badan galeen in la sameeyo waa arrin weyn horta labaad waxaan doonayaa inay fahmaan dad khubaro ah oo ay skill oo level walba la inay ka heli karaan halkan xoolahooda inay transparency iyo financial accountability weyn meesha ka jiro shuruuc jirto we have registry based on law Somaliland sharciga Somaliland oo register ku ah oo madaragtay criteria iyo wuxuu dhan la buuxinayo marka horta waxaan u sheegi lahaa inay halka madaragtay ka faa'iideystaan oo shaqooyinka ay u baahan yihiin ay ka qabsadaan qofkii website doonaya maanta ay kan maogtay uu ka hayr gareysan karaa kii doonaya business plan in loo qoro within couple of hours bi qaar ku qori karaan oo customization ku sameynaya hadii marka sector-ku uu establishment waxa kale oo jiri karaya haday rabaan madaragtay wax anything policy development dad badan oo dibadaha laga keenay inay ka maarmi karaan taas warta waa number 1 waa dadka doonaya inay shaqooyin loo qabto dadka dhalinyarada ah qaarna samirka badan leh qaarna 300 site ku jireen sugaya waxaan jecelnahay background check uma sameynana inay noo samraan anu eegno waqtiga ugu qurux badan ee Suurabola aynu soo jawaabi karno anagoo eegana capacity-ga iyo platform-ka koritaankiisa madaragtay way markii hadaan ku soo deeyno dadkii waxay u baahan shaqooyin platform-kiina dadku inay waqti bay qaadanaysaa si fiican u fahmaan dadka freelancers-kana waxaan u farayaa oo soo jeedinayaa dadka xirfadda leh inay horta CV-googana qurxiyaan waxay khabiir ku yihiin ay ku wanaagsan yihiinna ay soo qortaan oo ayna waxay madaragtay concept ka haystaan inay soo qoran way madashan waa madal dadka qofku wuxuu khabiir ku yahay kaliya ka shaqeyn karo documentation ideas madaragtay discussions waxyaabaha noocaas oo dhan aad ugu wanaagsan qofku marka chance-kan waxaan jecelahay bulshada inay ka faa'iideysato dadka kale oo marka dad badan oo waxa jira shirkado waaweyn maalin waxaan maqlayay
fikradda intay noocan oo kale u yara dhow laakiin dadka skillka gacanta ka shaqeeya sameeyay dee hor dadku inay initiative markaa kan wax ka bedelaan oo yara qurxiyaan oo yara macaaneen way wax iska caadiya normal oo nolosha adduunyada ayay moogtay ka mid tahay anagana dee faanu bay noo tahay in markasta dee maad aragtay shirkadaha waaweynna dee hal benefit baa ku jiro malaha suuqii markaa cid la tartanta waayeen bay small businesskii ayay jecel yihiin inay maad aragtay la tartamaan marka which is okay waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa in mar walba maad aragtay arrimaha noocana laga faa'iideysto bulshadana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin dad waxay tihiin maskax furan soo dhaweyn badan leh aad iyo aad baad mahadsantihiin maxamed aad baad u mahadsan tahay wax mar labaad iga xasuusina wixii fikrada aad haysaan ama wixii talaad barnaamijka soo jeedinaysaan fadlan nagula wadaaga qaybta hoose comments-ka ama fariimaha lagu celiyo page-kan ku leenahay bartaan ku leenahay YouTube-ka ee Connect Youth Case aad baad u mahadsantihiin